السلام عليكم كسر دواذا موضوعنا مانتا تاريخ midowgii Soofiyeeti midowgii Soofiyeeti wuxuu ahaa midow ay ku midoobeen wadamo badan kuwaas oo la isku yiraahdo USSR midowgii Soofiyeeti wuxuu ku yaalay labada qaaradood ee Aasiya iyo Yurub wuxuuna xuduud la lahaa wadamada sida China, West Germany, Mongolia iyo Turkiga halka uu xuduud badeed la lahaa Kuuriyada Waqooyi midowgii Soofiyeeti waxaa la aasaasay oo si rasmi ah loogu dhawaaqay December 1922 midowgii Soofiyeeti waxaa quwaddii shuuciga ay ugu xoog badneyd caalamka taasoo tartan xagga dhaqaalaha siyaasadda militariga iyo tiknoolajiyadda kula jirtay dunidii reer galbeedka midowgii Soofiyeeti wuxuu ka koobnaa 16 dal kuwaas oo kala ahaa Russia, Ukraine, Belarus, Georgia, Azerbaijan, Latvia, Estonia, Poland, East Germany, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Armenia caasimadii wadanka ahna magaaladii ugu weyneed uguna dadka badneed waxay ahayd Moscow midowgii Soofiyeeti wuxuu ahaa wadankii ugu ballaarnaa dhul ahaan wuxuuna ku fadhiyay masaafo dhan 22 milyan iyo 400 kun taasoo ka dhigaysay masaafada adduunka 6 meelood meel ka mid ah midowgii Soofiyeeti wuxuu wadanka saddexaad ee ugu dadka badan adduunka tiro dhan 293 milyan nidaamkii ka jiray midowgii Soofiyeeti wuxuu ahaa nidaam hal xisbi ah waxaana ka talinayay xisbiga shuuciga ee Marxist-Leninist Party dhanka dhaqaalaha midowgii Soofiyeeti wuxuu ahaa wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka taasoo lagu qiyaastay 2.9 trilyan sanadii 1990kii nidaamka dhaqaale ee midowgii Soofiyeeti wuxuu ku dhisnaa fikradda hanti wadaagga ee Marxism waxyaabaha uu dibadda u dhoofin jiray midowgii Soofiyeeti waxaa ka mid ahaa shidaalka hubka biraha iyo macdanta kheyraadka dabiiciga ee wadanka waxaa ka mid ahaa saliidda gaaska dabiiciga coal iron timber gold lead celceliska kororka dhaqaalaha ee sanadkiiba wuxuu ahaa 5% dhanka militariga midowgii Soofiyeeti wuxuu ahaa quwaddii ugu xooganeed adduunka wuxuu lahaa ciidanka ugu badnaa adduunka tiro dhan 4 milyan iyo 500 kun hubka iyo agabkii militari ee midowgii Soofiyeeti wuxuu ka badnaa dhammaan agabkii militari ee reer galbeedka dhanka difaaca gantaalaha midowgii Soofiyeeti wuxuu qarash badan galiyay gantaalaha difaaca sida gantaalaha Sam 100 Sam 200 iyo Sam 300 kuwaasoo awood u lahaa inay burburiyaan diyaaradaha iyo gantaalaha kusoo xadgudba taasoo ka dhigaysay midowgii Soofiyeeti wadanka ugu difaaca adka adduunka taasoo uu ku helay magaca King of Defense System ugu dambeyn midowgii Soofiyeeti wuxuu burburay sanadii 1991 daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar sidoo kale ha iloobin inaad subscribe ku samaysid channelka lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan